أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاليال إلهي baa mahadle subxaana wa tacaala, rabbigay noo suurtageliyey mar kale inaan hawada ku kulanno annaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xusayna, rabnana rabbi inaan ugu dhowaano kelmadaha iyo macluumaadka iyo waxyaabaha aan isweydaarsanayno inay noqoto mid alla inagu xidho subxaanahu wa tacaala, dhexdeennuna aan ku kala faa'iidno insha allahu tacaala. rabbiga ayaa mahadle subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxaad ku soo dhowaataan mar kale barnaamijkeennii horumarinta qoyska. qoyska aan xalaqadii hore aan ka sheekaynay ee la dhisay, ee la yagleelay, ee la bilaabay sidii loo daa'imin lahaa, loo wanaajin lahaa haddii uu alla yidhaahdo. kusoo dhowaada mar kale iyo xalaqad cusub oo aan isku dul taagayno caawa haddii uu alla yidhaahdo. daqiiqadaha soo socda aniga iyo macalimadeenna aada wada taqaanaan, macalimad hibe cumar geele, in aan markaa idiin soo gudbino haddii uu alla yidhaahdo wax nafci iyo faa'iido u leh haddii uu alla yidhaahdo qoyskaas, oo aan rajaynayo inay ka faa'iidi doonaan dadka oo dhan dhammaantood, gaar ahaan inta qoyslayda ah ee runtii ku dhex nool ee la rabo in ay theoryga intay ka saaraan practical u bedelaan, yacna ka saaraan wax la akhriyo, wax la sheego, oo waxa la akhrinayo la sheegayo uu noqdo wax camali ah oo lagu nool yahay insha allahu tacaala. marka caawa haddii eebba idmo waxaan qaadaan dhigi doonaa 2 qodob haddii alla yidhaahdo si aad ula socotaan. kow, qodobka u horeeya faa'iidada aan ka faa'iidayno guurka marka aan guursanno, waan soo sheegnay ahayd. marka faa'iidadaas aan isdul taagayna haddii alla yidhaahdo, iyo faa'iidadaas sidaan usii daa'iman lahayn. haddaad faa'iidadaa hesho, faa'iide kastiba waxay leedahay cadow, wax ka hor yimaada oo faa'iidadaa burburiya oo xumeeyo oo haleeya. marka qodobka labaadina wuxuu noqon doonaa haddii la yidhaahdo maxaa ka hor yimaada qoyska ama burburin kara ama guriga ama guurkaas cadow ku ah. qodobka u horeeya marka haddii alla yidhaahdo waxaan kusoo dhaweynayaa macalimad hibe cumar haddii alla yidhaahdo, oo aan ka codsanaya insha allahu tacaala in ay bal inoo bilowdo qodobada ugu horeysa ee guurka. marka la guursado, hibo maxaan ka faa'iideynaa? anigu nin markaan maxaan ka faa'iidayaa? adigu haweeney markaa tahay maxaad ka faa'iideysaa? labada isguursanaysa maxay ka faa'iidayaan? why? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما هذا نسوكو بكرين الحمد لله. runtii barnaamijkeeni baan kusoo noqonay mar labaad oo jimco walbaad ka daawan doontaan channelkan cusub oo maaragtay Somali Cable ah. barnaamijkan saad ogtihiin wuxuu ka hadli doonaa mar walba kobcinta, horumarinta, sare u qaadinta, maaragtay dib u cusboonaysiinta jacaylka labada qof ka dhaxeeya iyo noloshooda sida ay u hagaajin lahaayeen, ay u wanaajin lahaayeen, wixii dhibaato soo food saartana si ay uga bixin lahaayeen, ay maaragtay xal ugu heli lahaayeen. marka caawa on ka hadlayno insha Allah faa'iidada laga helayo guurka aan ku horumarinayno. faa'iidada ugu horeysa oo laga helayo guurka waxa weeyaan diintaadii oo dhamaystirantay, oo maaragtay haaf nuskeeda ku dhamaystirmay, nuska kalena aad Ilaahay kaga baqdid, cibaado iyo camal suuban aad ku buuxisid insha Allah. marka diintaadii hadday nusku kaamil buuxsantay, waxa ku buuxiyo wax yar maaha, waa wax aad u weyn. marka waxaas in la daryeelo si aad maaragtay ay kuugu badbaado noloshaada nolol wanaagsan ay noqoto. waxaa la yiraahdaa in laba qof oo wanaagsan oo aad u fiican ismaba helaanba. labada qof markay is helaan bay wanaagsanaadaan, way isla fiicnaadaan, way isla wanaagsanaadaan. markay isku yimaadaan bay noloshoodu wanaagsanaataa, way hagaagtaa. qofna qof dhammaystiran adduunka ma helaayo, qof walba nuqsaan buu leeyahay. nuqsaantaas waxaa kaa tirtiraya oo daboolaya oo asturaya qofkaaga kale ee lamaanaha aga ah. adiga nuqsaantiisaad adiguna daboolaysaa oo asturaysaa.
marka waxaa la rabaa in doon kaliya ayaa la wada korayaa labadaa qof. doontaas insha allah in ay si nabad qab ah ay wadadaas ay u maraan, ay u guuleystaan, natiijo iyo ubax wanaagsan iyo miro fiican uga soo baxo ayaa la rabaa biidni illaahi alkariim insha allah. marka walaalayaal insha allah waxa weeyaan waa fursad uu qofku ku kobco guurka. waa anigu markaan u fiirsado wallahi waan yaabaa, lianna adduunka heli maysid qof kale oo waqtigiisa iyo noloshiisa oo dhan ku wada siinaya waxaanan ahayn qofka zawjkaaga ah. qofka kula nool ayaa waxaad isla doorateen ood isku raacdeen ood isku ogolaateen in nolosha aad wada martaan oo wada dheer aad wada martaan. marka wadada dheer aad wada maraysaan oo habeen walba iyo maalin walba aad wada joogtaan, haddii aad ku kobci weydeen, haddii aad isku bedeli weydaan, haddii aad isku toosin weydaan, ayaan darri bay noqonaysaa. marka guurku waa nimcadaha ilaahay, nimcadaha kamid ah, bal kuwa ugu waaweyn bacda alislaam. marka in laga faa'iideysto ayaan aaminsanahay insha allah. jazaak illahu khayran. hiba aad baad u mahadsan tahay. sidaa walaasheen inoo tilmaantay walaalayaal, dabcan waxyaabaha waxaa ka mid a guurka laga faa'iido waa lagu xasilaa oo qofkuu ku degaa xasilooni deganaashiyo ayuu ka helaa. maxaa yeelay dhowr arrimoodba way u fudaydisaa. maalan baahi jireed uu qabay, waxaa la yidhahdaa guurku baahiyo badan ayuu ka jawaabaa. baahida wuxuu ka jawaabaa shahwadda nafta kugu jirta ee aada u baahan tahay qofkii labaad ee ma aragtay ku kamilayay in uu kuu buuxiyo baahidaas uu kuu gudo. waxaa sida oo kale kuu ratima oo yacni aada qiimo ku yeelataa. waxaad ka soo baxdaa dhallinyarnimadii, waxaad noqotaa qof mas-uul ah oo berri toole ilaahay markuu ku arsaaqo ilmo, waa faa'iidada kale markuu ilaahay ku arsaaqo ilmo, statuskii uu society-ga dhexdiisa uu ku lahaa uu isbedelayo. wuxuu noqonayaa wiilku markuu uu guursado, shalay wiil qoofila ayuu ahaa ama dhalinyaro ah oo aan wax badan hadalkiisa la qorin. waa soo gudbin doonaa insha allah. waxaa jira gabay nin walaalo uu tiriyay oo aada u qurux badan oo uu tilmaamayo ninku marka uu guursado stateka uu helo bulshada dhexdeeda. bulshada dhexdeeda qofku qiimo dheeraada ayuu ku yeeshaa oo wuxuu noqdaa maalan nin reer leh, gabadh reer leh, nin xaas leh oo maaragtay gabadh qaba, gabadh nin leh oo la qabo oo markaa mas-uul ka ah guri dhan. dadku waxay qoraan markaa hadalka qofkaas, hebel ha lanoogu yeedho oo ha lanoo gudbiyo. waa maxay? waa statuska ee aad ku yeelanayso, aad ka dhexelayso society-ga dhexdeeda. waxay noqonaysaa sida oo kale waxbaa lagugu aaminaya oo dee qof mas-uula maadaama aad noqotay, macnaheedu kama dhigna marka hore dhalinyarada tahay oo aad reer lahayn waxba laguguma aamini karo, kama dhigna. laakiin darajadaadaasii kacaysa. marba haddaad aabba noqotay oo nin reerla aada noqotay, macnaheedu waxa weeye qof capable u ah in xil kasta iyo mas-uuliyad kasta oo loo dhiibo ay dhici karta inuu kasoo baxo. waxaan odhan lahaa hal islu taaga meeshaas. dad badanoo runtii waxaa jira nasiib daro aan odhan karo, dad badan oo aada u tiro badan oo kasoo baxay oo ku guuleystay way jiraan oo xilka kasoo baxay. laakiin dad iyaguna number mucayan ah ayaa jira oo arintaasi si markaad u eegto mas-uuliyaddaas ku fashilmay. ceeb ma aha inaad ku fashilanto, waxaa ceeb ah in aad garan weyday inaad ku fashilantay. waa ceeb runtii inaad garan weyday inaad arintaa ku fashilantay oo faa'iidadii kamaad faa'iideysan. marka waxyaabaha sida oo kale walaalayaal laga helo waxaa ka mid ah inuu iimaanku kuu siyaadayo. waa maxay? waad dhowrsoon tahay. xasiloonidii maxaa ku xiga? dhowrsooni. oo macsiyo iyo dembi iyo gaf waxaa laga yaabaa dhinacii shahwada marka la eego inayna kaa dhicin. xadiis buu nebigu sal alla alay wasalam uu lahaa, ninkiin markuu banaanka wax ku soo arko oy ishu qof ku soo qabato, waa cajiib, meesha xikan badan baa ku jira. ha u soo laabmo reerkiisa. kulayl baa ku gali, hawaa ku gali, baahi baa ku gali. baahidaa ciddii ku gudi lahayd xaaskaaga weyaan. inaad u timaadood kusoo noqoto nebigu saas u leh sal alla alay wasalam.
midkiin ha soo laamo oo reerkiisa ha ku soo noqdo. weli waxaan ku guda jirnaa insha allahu tacaala faa'iidooyinkii hibo laga helayay guurka. faa'iidooyinka ilmaha ka mid a in aad noqoto hooyo, in aad noqdo aabbo, oo ilaahay sharaf iyo qiimo dheeraada uu ku siiyey. sharaftaas sidee loo dareemaa hibo? faa'iidadaasi intay la eg tahay? faa'iidadaas runtii aad maxaa dareentay? si kale aan ku weydiiye, maxaa dareentay maalintii u horreysay eed hooyo noqotay? yani runtii waa nolol kale. aniguna waa ka jawaabaya shaa. hooyanimadu horta waa nolol kale. waan waa gartay. waalid inaad noqotid. marka maxay hayday waalidnimaduna waa nimcad ilaahay ku siiyo. nacam. adduunkan oo dhan haddii la isku tago qof bil'aadana oo qof ilma siin kara ma jirto. ilaahay baa siin kara oo gacantiisa ku bixin kara. alxamdulilah rabbilcaalamiin. nacam. intaan awlaad haysana ilaahay awlaad khayr qabta ha siiyo. ilaahu amiin. intii haysatana ilaahay ha u barakeeyo. ilaahu amiin. in maaragtay dhammaantoodna ilmahaas ilaahay noo xafido biidnillahi alkariim. intaan markaan kasoo tago runtii jowharow guurka waxaa lagu yidhi in labada qof ay isguursadaan way fududahay, aad bay u fududahay. nacam. in ay wada joogaan oo ay noloshoodii ilaaliyaanna waa horumar ay gaadheen. nacam. in ay isla daa'imaanna oo maaragtay isku cimriyeystaan ay wada shaqeeyaan oo shaqada isla fahmaanna nacam. waa najaax. waa guul yani. waa guul. nacam. in meesha laga dhinto waxa weeyaan shaqadii baana la isla fahmayn. shaqadii intaad adigu lahayd, intaan anigu lahaa, wixii xaq adigu lahayd, waxaan xaq kugu lahaa, noloshu sideen u kala qaybtamaynaa, maxaa nagu soo aadaya nin walba, sideen garab iskugu noqonaa. taas ayaa haddii la fahmo guushu waa meeshaasay ku jirtaa. waxaan xasuustay iga raalli noqo kaama dhex galee. buugaan akhrinayayba wuxuu leeyahay ninka buugaa qoray markaan guursaday xaaskayga baa waxaan isweydiiyey yidhi tolow musqushaan dhowr jeer galay buu yidhi. markaasaan musqushii iskagooday baan arkay buu. deeta hadhowta waxaan isweydiiyey yidhi horta musqushan yaa nadiifin jiray? waa meeshaad ka hadlaysa ood leedahay yacna roolkii iyo mas-uuliyaadkii iyo wixii aan isku lahayn oo dhan baanan sideedii looga soo baxaynin oo mararka qaarkood dayacmaysa. waa sidaas. labadii qof ee wada shaqaynayay nacam. hadday shaqada isku fahmaan waxaan nidhi waa najaax. nacam. way guulaysteen kuwaasi. nacam. oo maaragtay noloshoodu nolol degan oo wanaagsan bay noqonaysaa. laakiin waxaa ku hoos jirta labadaa qof inay noqdaan laba aada isku cafiya. nacam. laba qof oo yaqaana sida la isku cafiyo unbaa wada noolaan karta. laba qof oo dhuunta iskaga jirta amba maaragtay hunguriga iskaga dhagan waxba meel ma gaarayaan. marka waxaa la rabaa in aan cafitaanka maaragtay aan badino oo labada qof isla nool inay taa badiyaan, ay ku noolaadaan weelka cafitaanka inay ku noolaadaan. waayo zalaadka iyo dhacdhac iyo khaladaadku aad buu badan yahay. waa dhib. ilmaha waxaa la yidhaahdaa ilmiha ku dhiba haddii aad qaadid oo guri kala geysid isagiiba maaha qof wanaagsan buuba noqonaya. waayo maxaa keensanaya dadkan uu ku cusub yahay. marka jaanibkiisii wanaagsanaa iyo wax fiican bay ka arkayaan. laakiin meesha uu ku noolaa khaladaadkiisii bay yaqaanaan, dhibtiisii bay yaqaanaan. marka waxaas u muuqata. marka waxaa la rabaa in labadan qof maadaamay wada joogaan habeen iyo maalin ay wada joogaan in environmentka iyo jawiga ay ku nool yihiin inay toosiyaan si midho fiican oo qabow oo degan uu uga soo baxo. aakhirka waxaan u dadaalayna waxa weeyaan in labada qof nolol macaan oo sacaado leh inay ku noolaadaan, ay bartaan mashaakisha sida loo xalliyo. ya haddii hal mashkil ay ku qabsatood ku guulaysatid inaad xallidid waxaa kaloo dhaqod ku dul ordi. laakiin mar walba waxaa dhacaysa waxaa laga cararayaa mashkiladihii. ma loo arki karaa yacna maadaama oon ku jirnay daa'iradii maxaan ku idhahdaa waxaa laga faa'iidayo guurka. shalay inan baan ahaa, adigu gabadh baad ahayd, keligaabaad noloshaada maaraysanaysay, keligay baan maaraysanayay, saaxiibo badan baan lahaa, nolol bulshaan ku dhex jiray, adigu sida oo kale. cid markaa aniga ama aan maamulayay ama imaamulaysay ama ila wadaagaysay nolol maalmeedkayga aan ku noolahay ma jirin. laakiin maalinta aan guursaday waxaa igu soo biiray qof kale. qofkaa igu soo biiray lababa way noqon kartaa. in macaanka u horeeya intii uu dhammaado ay isku bedesho qof cadow igu noqda oo markaa ay ku saabsan tahay sida aan u arko. waxyaaba qaarkood inta fahmi waayey qaabkii aan ula dhaqmi lahaa qofkan kale ee iga duwan kuma akhrin eeg oo maskaxdaadii ka haween ahaan maan baran oo maan ogaanin, hormoonadaada ma aqaano,
noloshaada maxaa iska bedela usbuucle gabadh baa tahay leen waxbaa iska kaa bedelaya ma aqaani oo la ima soo barin xataa gurigaan ka imaday la ima soo sheeginoo la ima odhan gabadh caynkaasa oo gabadh ahaan yacna waxa ay kaaga duwan tahay ayaa jirto ood u baahan tahay inaad baratid ma dhici ma la odhan karaa faa'iidooyinka marka hadduu xataa qofku jaanis u soo helin inuu guriga ku soo barto markanaan kula kulmay waa mar aan baranayo wax iga maqnaa new skills marka yacna farsamooyin cusub qaab nololeed cusub maalan tii aad sheegaysay yani xalaqadii hore self disciplinekii hadday waqti tahay hadday dhaqaale tahay haddii ay go-aan tahay ma loo arki karaa hibe in ay tahay faa'iido aan ka faa'iidayo oo aniga oo horumar naftayda aan gaadhay mise waxaa loo arkaa in ay tahay meelkaa dhac oo inaan hoos u dhacay oo inaan wax badan waayey oo inay cidhiiri tahay noloshan guurku in qof maaragtay maskax adag aan la noolahay in yacna saad isleedahay waa loo arkaa waxa dhibaatada weyn ay ka dhacayso waxa weeyaan oo sacaadadii ay u yaraato oo xubbiga u yaraaday oo isfahankii u yaraaday oo wada noolaanshuhu uu diiq u noqday waxaan qof walba isagaa raba wanaag in loo sameeyo diyaarna uma ahin inuu wax bixiyo meeshan waxaa laga hadlaya maxaad bixinaysaa ood guurka kusoo daraysaa guurkani waa shirkadani company haddaad maanta u shaqo tagtid waxa weeyaan isla subaxaasba waxaa laga rabaa inaad wax kusoo zaa'idiso ood maaragtay wanaag la timaadid bishiina wanaag kaloo ka badan sanadkiina wanaag kaloo kasii badan ma garatay si aad u dallacdid ood meel sare aad u gaadhid adiga dhan meel hoosaad ka bilaab ilaa meel kore guurkuna waa saas le waa mas-uuliyadda subax walba way ku subax walba jadiid tu cusub baa ku imanaysa dadkii aad dhashay ma dhimanayaan adduunka kama zuulayaan in reerkaagi waatana way ku hortaagan tahay hawshii la qabanayo dhan way ku hortaagan tahay marka mas-uuliyadda sidii looga soo bixi lahaa weeyaan marka waxa weyn waa tabaadul war waxbaan anaku siin anigana waxisii han wada shaqayno win-win situation markay meesha dhibaatadu ka imanayso waxa weyn markaan isguursano ismaba baranaynaba inaan isbaranaa la rabaa inaan adiga ku barto anigana aad baratid kadib aan wax wada akhrino oon fahano shaqadan cusub ee adigana kugu soo zaa'iday anigana igu soo zaa'iday meesheen ka qaadi karnaa sideen u wadi karnaa buugaan la wada akhristo ya anigu waxaan aqaanaa reer cusub oo isguursaday gabadhu maalin walba buug ka dambeeya akhrinaysaa waxbay akhrinaysaa intaas waxbay baaraysaa wiilkiina caalamkaas kumaba jiraba ma garatay waa ayaan darre inaan idhaahdo kuma jiro laakiinse realityga sidaas xaqiiqada sidaas marka waxa weeyaan gabadhii waxa laga rabaa wiilkaasi isagu ma dhici kartaa in uu isleeyahay reerkan usoo shaqeeyo shaqo uu ku mashquulsan yahay fahankiisa guurna waxa weeyaan aragtidayda inuu guursaday uu gabadhaas xaqeega iyo waajibkeega uu siiyo laakiin zaa'id kale iyo naashnash kale iyo qurxin kale iyo raaxa kale ma dareemayo ma arkayo iyo waxbarasho ina new skills inaad wax badan aad barataa la rabaa saas ma arkayo marka reerkaas oo kale waxaa la rabaa in gabadhooda wax akhrinayso ay wiilka la akhriso يعني إني وضع فريستان إني وضع هرو مرا إيك إني وضع كبعان أي إسلا السعودان هدي لبض قف إسلا السعودان ويان أي كالهران ماشاس وحاكا بلا ميا إن دباتوين يرير ولا كالهري وحقي يسفهن كأه ولا كالهري مركا لكالهرانا ولا سيكا لدوركي مركا لكالدوركنا لبا وضو وشقايس كلهم بالا كالقادن هدو تونا ولا يسهكر هي ولا اسمه حملي دونه ونولش وياد كان مid kastaba isaga isla saxsan yahay marka in wax la wada barto stage ugu horeeya waa maxay isbarasho in la isbarto oo la is akhriyo oo jaanis la is siiyo talabaad waxa weeyaan in wax la wada akhristo oo la horumariyo waxa noloshan cusub qaabkay u shaqeynayso oo cadawga badan leh qaabkay u shaqeynayso inaad baratid kolka ugu horeysid guursanaysidna qorshaha kuugu weyn inaad guursatid inuu noqdo markaad guri gashayna inuu qorshaha kuugu yar uu noqdo waa dhibaato markaad soo xirootid ee gurigii soo gashid baaba la rabaaba wixii wanaag aad taqaan wixii hadal fiican kugu jiray inaad banaanka u soo saartid oo qofka kula nool wiil iyo gabarba aad kula noolaatid sax weeyaan sida aad tilmaantay runtii waxa halka aan xasuustay haweeney Khadiija la yiraahdo khayr Allah siiyo ba waxay tilmaantay eri cajiib ay sheegtay waxay tiri jacaylkuna guurku hortiibu soo dhamaada tarbiyaduna way ka soo daahdaaba maaragtay cidii la tarbiyin lahaa
markaan sii faaqida een weydiiyey maxaa laga wadaa maxaa laga wadaa jacayl guriga hortiiba intaan guriga la aadinba dhammaaday iyo tarbiye aan dib u dhacday oo daahday waxaa laga wadaa sidanaa laygu macneeyey waana siday ku macnaysay marka ay fiirisay haweeneyda aadka u qiimaha badan leh khayr allah siiye oo geeska Afrika ku nool waxay tiri waan ku jeclahay iyo waad cajabisay iyo waad fiican tahay waxaa la isku soo akhriyaa inta badan marka shukaansiga lagu jiro marka la sheekeysanayo marka la rabo in la isku yimaado qofba qofka kale buu quruxdiisa iyo wanaagiisa tusiyaa iyo macaankiisa markaasuu qofkani raali noqdaa qofkan kalena qof kale raali ku noqdaa deeta maxaa dhaca guriga marka la isku yimaado way go'daa arrintii haddii hadii la isiinayey haddii restaurant la isgeynayey haddii la israacayey haddii waqti la isisiinayey waana midaan aan filayo mararka qaarkood guryo badan inay ka maqan tahay in labadii qof ee asalka ahayd inay waqti isa siiyaan odayaal badanee runtii aad bay meeshaa uga hinaasaan markuu ilmo yimaado in hooyadii ama gabadhii inay ilmihii ku mashquulayso odaygii markaa wuxuu leeyahay war meeshan dan baan ku qabeeyay dantii soo kale igala baxay ma cid kale meesha maartay soo gashay gabadhuna maxay ka dacwootaa gabadhuna waxay ka dacwootaa isagii sidaa muu aaminay guriguu ka baxaya eeg u fiirso wuu maqnaanaya wuxuu dareemayaa isagii attention la-aan soo maaha wuu maqnaanaya markuu maqnaado iyadii maxaa ku dhacaya waxaa ku dhacaya iyadiina cidla ayay dareemaysaa cidla dareemaysaa loneliness markaasi waxay leedahay dee odagani danba igama laba marka waxaan u baahnay meeshaas in runtii si fiican loo fahmo waxaan ku jirnaa weli hadduu alla yidhaahdo faa'iidooyinkii laga faa'iidaysanayay guurka marka maxaan ku idhahdaa la guursado waxaan u imanaynaa marka qodobkii labaad oo u baahan runtii in wax badan lagu baraarugo qodobkaa labaad intaanan qodobkaa labaad u gelin waxaan yaro galaynaa bareeg yar oo aan idin tusayno hay-adda maxaan ku idhahday Happy Marriage Academy oo idiin soo gudbinaysa arrintan idiin fudaydinaya TV-ga caalamiga Somali Cable oo idinka soo gudbaya London inaad fiirisaan bal hay-addu waxyaabaha ay qabato iyo dadka ay wax u gudbiso jazaakum allahu khayr daawasho yaro kooban بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada mar labaad walaalayaal barnaamijka Happy Marriage ay idiin soo gudbinayso oo ahaa maxaan ku idhahday horumarinta qoyska iyo guriga iyo qoysku in uu wanaagsanaado insha Allah taala waxa aad soo aragteen waxay ahayd waxyaabihii maaragtay dadkii aan la xidhiidhnay seminaarada aan ugu tagnay waxyaabo qaarkood ay ka yidhaahdeen ama ay noo soo qoreen runtii waxaan u galaynaa marka maadaama oon ka soo hadalnay faa'iidooyinka dabcan maanaan koobin waan yar taataabanay saan idiin sheegay markii horeba waana waqtiga daraadii waa taataabasho idinkuna waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaad nala soo wadaagtaan ood noo soo qortaan hadduu alla yidhaahdo waxaad u arkaysiin inay faa'iide tahay oo dadka in loo gudbiyo jazaakum allahu khayran waxaan u galaynaa hadda qodobkii labaad oo ahaa balan ku weydiiyey walaal haddaad nala socotay muxuu ahaa khayr allah ku siiyo qodobka labaad ee maanta ka hadlayno waxa weeyaan gurigaaga maxaa cadow ku ah ma taqaanaa waxa ka soo horjeeda ee la dagaalama ee aan ogolayn inuu gurigaagani jiro ama qoys kasta oo muslima oo Soomaaliyeed caalamka meeshuu doonaba ka jira cadow ku ah oo burburinaya ma taqaanaa waxyaabo badan baa jira xalaqadii hore haddaad xasuusataan macallimiintiiba waxbay inooga tilmaantay insha Allah taala waan ku celinaynaa waana sii dhammaystiraynaa jazaakum allahu khayran laba qaybood baan u kala qaadaynaa way tiro badan yihiin internal iyo external gudaha dhexdiisa wax ka jira iyo guriga banaankiisa wax ka soo weerara oo kaaga yimaada sideed waxa lin kartaa waa xalaqad kale waxa gudaha ka jira banaanka waxa ka soo galayana sideed isaga xayndaab isaga samayn kartaa ayadana waa topic kale
oo xalaqaadka soo socda aan kaga hadli doono hadduu la yidhaahdo. waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka mar labaad insha allahu tacaala hiba cumar macalimadeena ilaahay barakeeyo. hibo internal iyo external baad noo sheegtay, 2 qof baa guriga wada dhistay, qoyskan waxay noqdeen hooyiyi aabo, laakiin waxyaabo badan oo aan rabin ayaa jira. lagama warqabo mararka qaarkood in guriga dhexdiisu uu ka jiro dhibaatooyin badan iyo culays badan iyo cidhiidhi badan iyo wax badan oo burburin kara gurigan jiritaankiisa, bannaankana ay jirto. bal maxaa ka mid ah? bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed. wax badan baa ka mid a runtii waxaa cadaga ku ah guurka. guurku sidiisaba waxa weeyaan waa wax ilaahay noo sharciyeeyey oo oon wada ognahay oon u baahannahay faa'iidadiisa. wax kasta oo wanaagsan oo ajar laga helana cadow buu leeyahay. cadowga ugu horeeya uu leeyahay waa shaydaan siduu cadow ugu noqdo guurkana dee bilaadan buu isticmaalay. ma garatay fikradu ku dhalani, qorshuu u degi, maaragtay naftiibuu waswaso gelin, waxaasoo dhan buu qabanayaa. mashaariic buu dhiibay. mashaariic buu dhiibayaa. hawl buu hayaa, shaydaan ma fadhiyo. marka runtii mashkaladaha ugu waaweyn waxa weeyaan horta caalamka aan ku jirno inaan fiirino. caalamka aan ku jirno uu isbedelayaa maalin walba. waalidkeen qaabkay u noolaayeen uma noolin, oo waalidkeen noloshooda intay noolaayeen maysan arag 2 nin oo way isguursanayaan la leeyahay. subxaanaka walciyaadu billah. 2 dumar ah oo nolol bay wada samaynayaan la leeyahayna waxa weeyaan noloshooda may arag oo may maqal. laakiin annagoo ubadkii ay dhaleen ah waa nakan de ku dhex noolba. caalamkii waxaa lagu samaynayaa baan ku dhex noolnahay oon joognaa. marka guurkii weerarkaas badan baa lagu hayaa. waxaa la rabaa in aanad u fahmin guurku haweeney iyo contract dhex maraya wiil iyo gabar inuuna noqon, laakiinse jin iyo insi wixii noolba inuu guur dhex mari karo in laga dhigaa la rabaa. waana ayaan dari ma garatay islaamkeenana uu kasoo horjeedaa waxaas. adaa ku watay hadda visitkii ugu dambeeyay uu Afrika ku tagay Obama, waa kii ka Nairobi ku boorinayay in maaragtay dadka isku jinsiga ee isguursanaya in loo fasaxo. runtii wax dhaqankeena ku jira ma aha. waxaan u baahannahay xataa in la soo qaado ma aha. marka si cajiib ugu jawaabay ninkii ra'iisul wasaaraha oo yiri maxaan ku raadayay annaga nooma taala arrintaasi oo priority number 1ka nooguma jirto annaga. marka waxaad ka dareemaysaa isbedelkaas, waxaad ka dareemaysaa inaan ku dhex jirno. waxaa laga bilaabayaa alfaadii, kelmadihii, vocabulary-gii baa la bedelayaa, language-gii, terminology-gii wixii la oranayay baa la bedelayaa. maxaa laga dhigayaa halkii gabadh iyo wiil baa is aroosi jiray ma jirto. partners baa lagu leeyahay. waa dad shuraka ah, 2 qof oo shuraka ah. 2da qof ee shuraka ah ma insaanba, ma jinniba, ma malagta, ma 2 ninba, ma 2 dumara, ma nin iyo naagba, maxay alla waxay yihiin? maxay ku shurakoobeen? partners business ba muxuu yahay ma taqaanid. ya sax. in halkii la oranay haweeney iyo nin xaggii la oran lahaana waa laga daayo. haweeney baa tahay laguma oranayo, maya wiil baa tahay laguma dhahayo. genders baa loo isticmaalaya. genderkaagu muxuu yahay? maantana Google hadaad gashid 50 genders baa jira, 50 genders oo kala duwan ayaa jira. xataa Google-ki iyo Facebook way ku wareereen, waxay qaataan way ku wareersan yihiin. marka waxa weeyaan dhibaatooyinkaas aan ku dhex noolahay walaalayaal. in xisaabta lagu darsado guurka waxa cadow ku ah in maaragtay shuruucdan badan ee adduweynaha la dejinayo oo diiq ka dhigaya guurkii si loogu fudaydiyo waxan kale oo dhan ayaa loo fudaydinaya. laakiin labadii ninkii iyo naagtii in muslim ha ahaadaan, Christian ha ahaadaan, Yuhuud ha ahaadaan, waxay doonaan ha ahaadaan, ayaga waa lagu kiilaya, waa lagu cidhiidhinaya noloshii. waxaa kale oo jira in maaragtay in laga dhigo jimaaci, laga dhigo xalaasha ah ee guur lagu heli lahaa in wax banaan laga dhigo. oo uma baahnid guur inaad u martid lagu yiraahdo. uma baahnid guur inaad u martid. marka si raaxadaada iyo noloshaada iyo aad shahwadaada u gudan kartid de meesha doontaad aadi, cidda doontid u tag. umana baahnid buuqan guurka iyo wareerkan iyo mas'uuliyaddan inaad qaadid. marka si fudud oo bilaa buuqa oo bilaa consequence oo bilaa dhib ah ku gudo shahwadaada lagu leeyahay. waana dhibaatooyinka guurka soo food saaray. waxaa kamid ah walaalayaal waana dhibaatooyinka bulshooyinka haysta. dabcan nabiguna uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qoomka iyo dadka ay zinadu ku badato fitan iyo maaragtay masaa'ib ayaa lagu salidaa, cudurraa lagu salidaa. marka waa laynoo sheegay xataa waa layna baray. laakiin saad sheegayso dabcan wuxuu ku jiraa institutionkii maxaan ku dhahday guurku runtii
threat يعني handadaad ayuu ku jiraa khatar lamana dareensano khatartaas laakiin muslimiinta waxyaalaha u soo haray sidii sheekheeni Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil mar walba uga dardaarmo waxa kamid ah oo soo haray waa masjidka ay ku dhex tukadaan iyo guurka labada qof is guursanaya labada institution baa u soo haray inta kale oo dhan haymanadoodi waa lagala wareegay marka labadaasina mar walba weerar baa lagu hayaa oo adiga arkay masaajida waagi Turkiga hal lagu tukada af Turki loo oran jiray in Soomaaliya xataa af Soomaali faataxada hal lagu akhriyo la dhihi jiray in Ilaahay uu naga badbaadiyay maxaa kale oo soo haray faamigana weerar xun baa lagu hayaayo dhaqan aanan lahayn baana soo gelinaya waxaad arkaysaa 120 hay-adood oo is ag cararaya oo faamiliga hooyada iyo aabaha ku bixinaya wax maxay ku bixinayaan oo ay ka rabaan dadka waxay ka rabaan oo wanaag u soo ziyadinayaan hadii loo sii fiirsado way yartahay baahidu mujtamaca Soomaaliyeed meesha ka haysa lama daboolayo meel ayna ka hayn ba maanta oo dhan sidaas loo walaaqaya marka walaalayaal waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn haweenka ayaa la weeraraya si haweeneydan banaanka loogu soo saaro mas'uuliyadeedii iyo waxa ay ku fiicneed ay xariifka ku ahayd sameyn lahayd soo saar lahayd si looga mashquuliyo wax kale lagu mashquulinaya runtii inta indheer garadka ay fahmaysa baa fahmi karta inta kale dabinkaas ay ku dhacayaan maalin walba loo qurxinaya lacag ciida ka badan baa lagu bixinaya marka dhibaatooyinka guurka haysta labadaas kamid oo banaanka ah waxaan u soo jeesanaynaa wixii gudaha ka imanayay waxa weeyaan dhaqankiyo adag oo ku fudaydinin guurkii in waalidkii oo haduu doono qabiil kugu xiraya haduu doono shaqo kugu xiraya haduu doono shahaado kugu xiraya oo kale heer jaamacadeed maad gaadhin gabadheeda ma guursanaysid ma gabadheedu jaamacadaha dhamaysato wiilkaygu sidan ha noqdo shuruud sidaas oo fara badan oo waalidku ay keenayaan waxyaalo waxa jira dhaqanku uu keenayo oo kamid tahay gabadhana darabtideena aroostid gabadh baaba ka weynba amba gabdhaha ka weyn ilaa gabdhahaas ay guursadaanna ma soo haweysan kartid lagu yiraahdo iyaduna guursanaysaa qof gaadhay waqtigii la guursanayay oo rabto inay guursato waxa sidaas loola dhaqmayo marka waxa waa dhibaatooyinka guurka walaalayaal haysta culture-kii baa kamid ah waxa kamid ah maaragtay diintii oo qaab adag loo isticmaalayo oo waxay diintu fudaydisana adag laga dhigayo waxay diintu adkaysana la fudaydinayo waxa kamid ah meherka ay diintu fudaydisay meherkii baa cirka la geenaya oo la adkeynaya qaali laga dhigaya xaflad yar oo kooban oo wanaagsan in la sameeyo oo basiid ah ayay diintu noo fasaxday oo noo ogashahay marka xafladii baa waxa laga dhigayaa wax cirka iyo dhulka ka baxsan ma garatay marka dhibaatooyinkaas oo dhan maadaama qodobka aad taabatay hiboy يعني إن عروسك الله سميه حفلة أو قبل الله مش عرضه أو لقى فرحيه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحال لكن سنها أهين وحال سنها أهين أو عصب أن سمينا أيها جرا وح سنها حفلة داسة كمدة إن لا وانقلوا أو ما ركتي يعني الله سميه وليما الله سميه إن دفلاتهم oo loo mushcarado waa sunnadii nabigu ina baray sallallahu alayhi wasallam oo waxaan dhaqan aan u leenahay laakiin inta badan markaad fiiriso meelo badan haday gudihii tahay iyo hadii ay maaragtay dibadda tahayba qarbiga gaar ahaan galbeedka iyo dalalkan aan runtii aan ku noolahay waxaad arkaysaa mesela xaflad aroos baa la sameeynaya xafladda arooska ah billahi alaykum walaalaha waxa la wadaagaya ilaahay ka baqa waliba hooyooyinkan oranay aad ilaahay uga baqa subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay xafladda waa farxad waa sax laakiin waxaad ku dadaashiin oo isku daydin inta aad ku dadaali kartiin in xaflad diimeed oo islaameed oo islaamkii diinta ogoshahay islaam markaan ka hadlayna maadaama ilaahay ogolaanay in uu rabbi subhanahu wa ta'ala in abuuray islaam inoo soo dejiyay nabi maxamedna uu yahay rasuulkii aan raacnay oon shahaadanayn billahi alaykum waxaad ii sheegtiin dad badan oo waxaa jira runtii ka hadla marka ay dadka kala khusayso si fiican baan u naqdinaa oon uga hadalnaa oon u krid saaraynaa laakiin intayda markay soo gaadho albaabada badan baan maaragtay jabsanayaayo limit badan baan maaragtay xuduud badan baan fasaxanaya meeshaan u socdo waad ila wada garanaysiin aroosyada 11 iyo 12 la imanayo waxaan aad u codsan lahaa inaan dadka inaga horeeyay muslimiinta ee dhulkan degan galbeedka marka laga hadlo in aan eegno sidee aroosada u sameystaan mesela jaaliyada Pakistan ka markaad eegto arooska dhanba macal xafladiisa maca waxa dhan shanta galabnimo dhamaatay
shanta kale inay dhibaataan reerkoo dhan way ka qayb galaan reerkoo dhan way ka qayb galaan waa nimcad rag iyo dumar waa laga qayb galaa dabcan raggu meelahoodii maaragtay ku sameeyaan meherkii iyo maaragtay maxaan ku dhahaa xafladii markaa meherkii xafladii gabadha marka loo sameynayo way samaystaan laakiin meeshaan u socda waxa weeyaan hooyadii way dayacan dadka tahay khariban waa gabadhii way dayacan tahay maya xataa carooskii waxaa dhici karta karaahi in fitno ay ku bilaabato waa karaahi marka meeshaas mawduucaas waa runtii mawduuc u baahan iskii in la isdul taago may waa saas khayr allah idin siiyo waxaan kusii soconaynaa mawduucaas walaal mawduucaas axmedow Fadal. waxaan anu jeclaan lahaa inaynan ka harin oon maalin walba oon telefishinka soo joogsanayna aan ku boorino umadeena nacam annaga haddaan jaaniskaas iyo waxaan mas-uulka nahoo guursanaya aanu aragnana nacam aan u horseedno dadkii wanaag nacam ma garatay nacam ta kale waxa weeyaan waaba waxaan adduunka laga arag oo adduunka idil ee kooban intaa leeg aan laga maqal waxay soomaali dhaqan ay ka dhigatay waa wax aada u dhib badan nacam ragga soomaaliyeedna waxaan odhanaa ilaahooga ha ka baqaan oo gabdhaha soomaaliyeed ee 12 kowda 2 3 socda waxa laga daayo sidaa doontiinba ugu fudayday inay xafladda tagto laakiin xaflad waqti aqalgala la qabsan karo ha la tago otherwise ha la iska daayo walaalayaal tan kale waxa weeyaan reerka khayrka ku bilaamay iyo farxadaas islaamka ee usoo ziyaaday in macsi lagu dhex dabaasho waa ayaan daray marka ta kale waxaan kusii darayaa gabdhaha xijaaban ee habeenka carooskooga xijaabka laga dhigayo ee sidii doona laga yeelayo oo ninkii doona uu arkayo oo kamaradii doona laga duubayo waa ayaan darri wallaahi taasna waa ayaan darri xisaabteeduna way sugaysaa dadkii saa sameeyey ilaahay ha uga baqaan barnaamijkaasna mar walba inaan soo celcelino oon sheegno unbaa nala da kaamarooyin hidana jira hibo oo aan laga warqabin waxaa ka mid a telefoonka smartka ee la wada wato cid kastana ay duubi karto marka arrinta ha la iska jiro waxaan ku jirnay runtii maxaa cadow ku ah gurigoona u burburinaya dabcan waqtigii aad buu inoo hayaa qodobada aan rabo in aan taabanno marka gudaha dhexdiisa ay noqoto waxa ugu weyne cadow ku ah way soo sheegtay hibo khayr allah siiyo shaydaanka labadiinaba uu idinka faa'iidaysanaya externalka hay-adaha waxaa ka mid a saaxiibada banaanka marka laga hadlo waxaa ka mid a saaxiibada oo adiga oo markaad nin tahayna kuu waramaya adiga oo marka aad gabar tahayna kuu waramaya laakiin labadiinu ma iswarsataan horta ma idinka dhexeeyaa cilaaqo waxaa weeyaan cadowga ugu horeeya isfahan la-aan survey baan samaynay dhowr bilood ka hor number 1 wixii soo baxay mataqaan inay dadku wada celiyeen misunderstanding isma fahno inta rageena soo wacaysa inta haweenena soo wacaysa walow haweenku ay badan yihiin dadka talada raadiya ilaahay khayra siiyo idinkana waa oran lahaa talada raadso meel kastood ka heshiin talada wanaagsan qaata rag hadaa tihiin waxa weeyaan yaanad is adkaynin raggu ego wax la yidhaha bay leeyihiin waxaan dhihi lahaa waa xalaqaad soo socda insha allahu tacaala number 1 waxaa baxay misunderstanding siduu ku baxay waxa weeyaan communication ma jiraba number 2 na wuxuu noqday lack of communication wada hadalba wada hadalkii buu yiraahday marka waan sii wadi doonaa insha allahu tacaala hiba maxaad ku daraysaa waqtigii xalaqada way idoo soo gabagabadii aan ku jirnaa khayr allah ku siiyo runtii barnaamijka uu daba dhow yahay waxaan odhan lahaa in maad aragtay labada qof ay isku soo jeestaan ya in xad ay samaystaan xad hadduuna jirin oo labada qof ay wadaagayaan waa dhibaato in labada qof nin walba nafsi ayna noqon oo aniga uun inaan wax rabo oo qofka kalena waxba aan u ogolin waa dhibaato in ixtiraam darri aan muujiyo waa dhibaato oo qofkii ila noole aan qadarin waayo waa dhibaato aad u fara badan in caradaydu ay xadka ka baxdo oo waxaan doono aan sameeyo oo waxa weeyaan in dhibaato ayay keensanaysaa waxaa kaloo dhibaatada ka mid ah in dareenkaygii lay buuxin waayo baahidayda in lay buuxin waayo in layba qadarin waayo qof jirta oo maaragtay wax sheegan karto baahan wax aan noqon karo in maad aragtay la kala mashquulo oo aad loo kala mashquulo sidii aad sheegi jirtay axmedow laba qof waxaa jirta aqalkii wada joogta oo kala qoslaysa oo laba telefoon kala haysata nin walba telefoonkiisa labadii fadhigooda fadhiyay labadii fadhida nin walba telefoonkiisa la qoslayay yaana la noqon laakiin isku soo jeesta isma fahanay Soomaalida yiraahdeen baaritaan markaan sameeynay maxaa la isku fahmi karaa waxa la isku fahmi karaa waa aragti waa wada hadal waa wada fariisi taas in la badiyo insha Allah
in mashaakishu way badan tahay waan sii wadi doonaa xuluulna waa la raadin doonaa mar walba mashkilad haddii la sheego waa in halkii la raaciyaa si ummadeenu ay uga faa'iidaysato annaguna nafihina uga faa'iidaysano cajziga iyo aamusnaantuna dhibaato weeyaan haddii ay labada qof ay kala aamusaan wallahi shaydaan meeshaas uu ka faa'iidaysan haddii la kala caajisana oo mas-uuliyaddii laga caajisana waa dhibaato marka in hawl waxan waa shaqa la yidhi guurku waa shaqo labada qof ee wada nool shaqo waxaa u taala full time job waxa la yidhahdaa u taala marka shaqadooda inay qabsadaan ilaahayna ay kaga baqaan intaasaan kusoo koobsanaa wajazaakum jazaak illahu khayran aad baa umahadsan tahay macalimed hiba cumar runtii fikradaha aadka u macmacaan ee noo soo gudbisay waxaan rajaynayaa walaal kasta oo na fiirsanaya iyo walaasha kasta ee na fiirsanaysa ama qoys leh ama qoys diyaarinaya inay arrimahaas insha allahu tacaala ay ku baraarugaan oo runtii ay inta faa'iidadana ay ku tashadaan siday uga faa'iidaysan lahaayeen inta dhibta u keenaysana sida ay xayndaab uga samaysan lahaayeen in ay ku baraarugaan dhibaatooyinkaasi inay jiraan marka insha allahu tacaala waxaan soo gaadhnay waqtigii aan soo afjari lahayn barnaamijkeenii horumarinta qoyska mahadda rabbi subxaanahu watacaala oon ilaahay u mahadnaqayno ka soko walaalayaal waxaan mahad ballaaran aan u gudbinayaa macalimadeenna hiba cumar oo runtii mar walba heegan u ah u taagan in ay intay wax akhriso waxay noo soo gudbiso waxaan runtii sida oo kale mahadnaq ballaaran usoo gudbinaya walaalaha mar walba aan tilmaamay gadaal jooga ee idiin soo gudbinaya barnaamijka TV-gan ballaaran ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo Somali Cable oo maaragtay hormoodka uu ka yahay Mustafa ilaahay ha barakeeyo Sheekh Mustafa iyo tiimka dhan ee shaqeynaya waa aniga oo idinle walaalkiin Axmed Jawhar oo idin leh is arag dambe oo xiiso leh iyo inaan isugu soo noqono barnaamijka Happy Marriage Academy ee idiin soo gudbisay horumarinta qoyska. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wixii talooyina noo soo gudbiya baarak allah. Facebook nagala xiriira waan mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.